السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا شارب الشو مروا بجوتان ومضى الصوماليات وحن رجلنا بش إيه برواقه إيه هناك مروا بقات كسر جنتين شارب الشونا مروا بقى وهل كده هنقضي سبسكرايب كسارة مروا بقات نرجع قاديد إن الله عليه إيه أنت سبسكرايب كرو صار تروح علينا هاي ود ما هسنتهين أنت ضمباء وصار دون تروح علينا كسر هذا شارب الشو أصحابنا عصب بعض نقوليسان حدي إلى هاي إدمه مركا ويكون كانسا إن شرب الشو لسعتين هدي جنبالك آذان فرن وآذان سبسكرايب كسران يلايكتا عدي إلهي إدمو وحي فكرة كقطعنا هوس كومنتي إلهي دود مكسو قرأ إن شاء الله إنت وحرمي وناجي شرف بان ذي هينا كسو دوادا عاوة إيو شارب الشو وكسو قادنا إنه ورك الدون هدي إلهي إدمو مرة بحاجة شو حد يسوق الدنيا سان كبر القادم وركي وجود بيماتي وحين يسوق الدنيا بدل كصوماليا كدعي كوي مثل رئيس الوزراء عصب الدولة فدرال كاه الصوماليا مدني إنجنير محمد حسين روبلة وصلي هوري وقبل القادم مركو كقب بيني معناتي لاسحيني 4 للصورة في برلمان كدلك الصوماليا أقل كهوسة أصله الشيء إن صوماليا وأفر دونه وضع عصب وهوري عن وفرنين رئيس الوزراء روبلة wuxuu kaloo sheegay inuu ka shaqeyn doono arrimaha amniga wuxuu sheegay inuu ka shaqeyn doono isu keenida ummadda Soomaaliyeed wuxuu sheegay inuu ka shaqeyn doono dhaqaalaha Soomaaliya sidii loo soo kobcin lahaa oo ummaddu ay u heli lahayd suuq furan oo dhaqaalahooda uu ku kobco dawladuna ay u sahasho adeegga bulshada Soomaaliyeed ay mar walba ay u baahan tahay iyo inuu ka shaqeyn doono u ballan qaaday hanaanka doorashada ee Soomaaliya ay tagi doonto haddii Ilaahay idmo oo sheegay doorashadu in ay ku dhici doonto si xor iyo xalaal ah oo dawladdiisuna ka shaqeyn doonto xoogga saarayso arrimaha doorashooyinka taas asagoo ka duulaya ra'iisul wasaaruhu aan ila xasuusiyo insha Allah biidnillaahi kariim baarlamaanka Soomaaliya qodbadii markaas uu ra'iisul wasaaruhu ka jeediyay oo arrimahaas ku ballan qaadayay iyo jaab ballantii maxaa ka fulay ra'iisul wasaaruhu ma yahay nin talaabooyinka ugu horeeya ee laga arkay qaadaya inta uusan xukuumadda soo dhisin inuu watashi ummadda Soomaaliyeed oo dhan ula yeelanayo saamileyda siyaasadda ururada mucaaradka dawladda ku ahaa intaba uu la kulmay marka qodbadii baa wax yar isla dhageysanayna oo xasuusinayna dhageys wacan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kalsoonidii uu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 17 bisha Sebtembar 2020 ila siiyay fursadan qaaliga ah sidoo kale waxaan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh uga mahadcelinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkugu hormayn iguna siisaan codkiina kalsoonida mudanayaal marwooyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga 2 arrimaha doorashooyinka 3 horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada 4 cadaaladda iyo garsoorka yaa baqaysa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay balaqaadkii uu fuliyay maanta wuxuu la kulmay oo taas anagoo ku duulayna balaqaadkii uu sameeyay xisbiga wadajir hogaamiyahooda Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ahaa ninkii dawladda si weyn u dhaliili jiray wuxuu la kulmay madax goboleedyada sida Axmed Madoobe Waare iyo lafta garin oo ku qaabilay madaxtooyada Soomaaliya siiba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi weyn oo siyaasadda Soomaaliya aad uga dhex muuqda ahaana ninkii ugu weynaa mucaaradka dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3 sano iyo barkii la soo dhaafana oo san cag dhigin madaxtooyada ayaa maanta ra'iisul wasaaruhu martaqaad ugu sameeyay oo ku casumay villa Soomaaliya halka waxa ka muuqata marka ra'iisul wasaaruhu inuu fulinayo balantii uu qaaday inuu yahay iftiin ummadda Soomaaliyeed oo soo baxay ra'iisul wasaare Roble oo ummadda Soomaaliyeed ka rajeynayso wax weyn inuu u qabto uuna ku sifaysan yahay calaamadaha markaan haddaan ku aragno iyo qaab dhaqanka dawladeed ee hadda uu ku bilaabay asagoo aan weli soo dhisin wasiiradii in uu la kulmayo mucaaradkii iyo mu'ayidkii iyo cid walba oo
saami ku leh siyaasadda soomaaliya mudanna in lagala tashado sidoo kale ra-iisul wasaaruhu kulankaas uu laga qaatay madaxda wuxuu kaloo kusoo qaatay in uu ka shaqayn doono hadba sidii doorashada soomaaliya ay horay ugu socon lahayd haddaba madaxda markuu qaabilana waa tanaa ila fiirsado waxaan marka insha Allah biidnillah kareem dawladda Soomaaliyeed horay u socota shacabka Soomaaliyeed dhammaanteen waxaan ugu baahan yahay dawladda inaan garbaha isqabsano oo aan dawladda taageerno haddii Ilaahay idmo insha Allah biidnillah kareem waxaan la socon doontaa barnaamijyada dambe Ilaahay hadduu idmo sida ra'iisul wasaare wuxuu qaabilayo iyo doorashooyinka soo socda sida loo agaasimayo iyo xukuumadda la soo dhisi doono ayadana aan falaqayn doono Ilaahay hadduu idmo oo aan ka filayno ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa habsoomo socodsiinta dawladda xagga amniga doorashooyinka iyo ummadda Soomaaliyeed dhaqaalahooda iyo in kor loo qaado shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa in aan meel walba dawladdeena garab istaagno anagu ma lihin dawlad kale aan dawladdeena Soomaaliya ahayn ma lihin dal aan dalkeena ahayn ee Soomaaliya insha Allah wadaniyada iyo inaan ka shaqeyno isgarabtaaga ra'iisul wasaaraha shaqada wado iyo xukuumadda oo dhanba waxa way marka xilli mucaaradnimadu way dhamaatay xilligii wax la mucaaradayayna way dhamaatay waxa la rabaa markay mucaaradnimadu ay socoto in lagu mucaarado qaab khadaran haddii dawladda lagu maamulayo iyo siyaasad qaldan laakiin haddii dawladda Soomaaliyeed la garab istaago oo wax walba la saxnana way soconaysaa haddii Ilaahay idmo shaariba show mar walba ku soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta qaaliga mar walba waxaan leenahay wiilkaaga ha ahaado shaariba show